diinkuna ma dhuunyado dareemada abaartoo afka wuu u diidaa hadduu gogi ku daaqee anna dooqu yaab leh siduu iigu kaa diray dawooy adiga mooyee laanta af soomaaliga ee VOA-da welina waa murtidii iyo mahmaahihii ay soomaalidii hore u saarisay dugaagga iyo duurjoogta qaarkood. dhegaystayaal diinku wuxuu ka mid yahay nafleyda xamaaratada ama baku socotada aynu ku magacowno xeebaha banaadir intooda badanna diin ayaa looga yaqaan. wuxuu ku jiraa cawska iyo caleenta dhirta uunka ku nool siday cilmibaarayaasha qaarkood xaqiijiyeenna sanku neefle oo dhan buu ugu cimri dheer yahay inta la hubiyeyna 180 gu ayuu gaaraa. waxay kaloo soomaalidii hore ku sheekayn jireen inuu diinku jecel yahay wixii wanaagsan ee soo maray xusuustooda. wuxuu iska diidaa ilaa waxaa wanaagsan ay mar labaad soo marayaan inuu u muuqdo wax liita oo ilowsiiya xusuusta macaan ee maankiisa ku harsan. si ay taas inooga dhaadhiciyaanna waxay ku sheekeeyeen deegaanta xilliyada aaranka dhulka ka baxda hadduu daaqo in aanu u hamoon cawska jiilaal ee dabjoog iyo duurjoogba ay xoolaha kala daaqaan. xilli roobaad wixii baxay mooyaane dhirta caddaata iyo cawska qalala midnaba kuma hambaaso si macaanka doogii hore aanu u ilaawin ama aanu afkiisa uga tirtirmin. taasna waxay u cuskan jireen oraah isaga qudhiisu inuu yidhi loo saariyo oo ah afkii aan doogga ku daaqay dareema ku daaqi maayo. hal abuurkii haddana jiraaga weyn ahaa ee allaha u naxariistay la odhan jiray maxamed cumar huryana lagu naanaysi jiray ayaa hees jacayla oo uu beri tiriyey wuxuu ku darsaday oraahdan ay diinka u saariyaan. isaga oo bahalkaas isku masaynaya ayuu gabadhii uu u heesayey wuxuu dareensiinayaa iyada barashadeedii kadib dumar kaleba inuu ka go'ay si xusuusteeda aanay xusuus kale uga dheehin. heestaas oo jacayl daran ku magacaaban meelisyadeeda kuwa ay sheekadaa diinku ka muuqataana waxay ahaayeen diiggaa habeenkiiyo markuu waagu daalo cuduryamood ogsoonto dayaxuu barkaga maqan dabuubta ugu yeedhaa. diinkuna ma dhuunyado dareemada abaartoo afka wuu u diidaa hadduu gogi ku daaqee anna dooqu yaab leh siduu iigu kaa diray dawooy adiga mooyee dumar kale ma eege. heestaas oo sidaan soo sheegay uu huryar ahaa waxaa codkiisa dareen taabad kale inagu soo gaarsiinayay maxamed axmed oo ka mid ah fanaaniintii heesteenna casriga ah hirgelisay ee milgadeeda bulshada Soomaaliyeed ka dhaadhicisay.